gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa maanta muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Abubakar Sadiq ku wareejiyay gurigiisa oo muddo 30 sano si sharci darro looga haystay kaas oo ku yaala degmada Kaaraan. Wareejinta kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha kala duwan oo gurigan ka kooban yahay kaas oo ay ka muuqatay burbur iyo dayac xumo baahsan. inta ay kormeer ku jireen mas'uuliyiintani waxa ay warbixino kala duwan ka dhageysanayeen maamulka degmada Kaaraan iyo sidoo kale muwaadinka Soomaaliyeed ee gurigiisa muddada 30 sano gacantiisa ka maqneed. intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay Axmed Maxamed Saalim oo gurigaasi wareejiyay muddo 30 sano kadib. dadka xaq u lahay gudoomiye adeer Abubakar adeer Cumar Ramaax Safiyo Sadiq Sheekh Axmed gurigeeda maanta waa ku wareejinay furaheedana waa kan inta ku soo dhaqanana Ilaahay naga cafiyo. gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Abshir Kaaraan waxa uu ka warbixiyay heerarkii kala duwaneed oo ay soo martay wareejinta gurigani. waxa inoogu yimid sheekhan Sheekh Abubakar oo cabasho ka ah u soo cawday maamulkana markuu arkay waxa inoo soo baxday inaan u yeerno darafka kale markaan u yeernana noo cadaatay in uu gurigaas wax sharci ah oo soo deganeyn dabadeedna oo isla garanay inuu dadkii lahay aan ku wareejino saasan maanta ay noogu soo gabagabowday maalmo badan ay noo socotay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Marwo Basma Amar Jakeyti waxa ay ka mid ahayd mas'uuliyiintii goobta ka hadashay. qof kasta muwaadin Soomaaliyeed ee ku nool caasimadana maamulka gobolka Banaadir oo horay duq magaalada waxaan diyaar u nahay in muwaadiniinta ay helaan xuquuqdoodii iyo waxay xaq ay ku leeyihiin. qof muwaadin Soomaaliyeed oo xaqiisa maqan yahay mas'uuliyad gaar ayaa naga saaran hadaan nahay maamulka aadan ugu soo dhaweynaa in maxaladaha laga shaqeeyo horumarka magaaladan iyo qof kasta muwaadin inuu ka shaqeeyo horumarka iyo qof kasta muwaadin oo xaq oosan lahayn uu hayana inuu u fududeeyo qofka kale oo xaq iska leh. Abubakar Sadiq oo la wareegay gurigiisa ayaa uga mahadceliyay maamul gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Kaaraan sida ay uga shaqeeyeen helitaanka xuquuqdiisa. maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish horta macdiisana idin sheegaa meeshii loo dhig warka ma imaanay kala bax hadii ma qashid Cumar Finish Allah macna kalaam Finish waa dhamaaday waay dulmigi waa dhamaaday xaqiya soo daahir waay waqul jaa al-haq wa dhahara al-batil. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish waxa uu tilmaamay in maamul gobolka Banaadir uusan aqbali doonin in muwaadin Soomaaliyeed hantidiisa si sharci darro looga haysto isla markaana xilligan laga gudbay xilligii sharci darrada lagu dhaqmi jiray. maamulka degmada iyo gobolka iskaashanayeen waxay ku guuleysteen inay milkilihii ku wareejiyaan maantay gurigoodii oo hadda aniga aan furihiisa gacanta ku hayo. waa uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay dadaalka isaga ah maxaa yeelay waa samafal in hanti iyo qofka iska lahaa dib la isugu soo celiyo markay muddo kala maqnaayeen. waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa degan ama haysta hanti ayaan lahayn gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir gudihiisa ah inay cid walba hantideeda ay dib ugu celiyaan ayaan ugu baaqaynaa inta aan dacwad iyo dhibaato iyo mushakil kale uusan imaan. haddii marka ay ayagu si wanaagsan wax isugu wareejiyaan oo milkiiluhu oo wixii si helo dacwo la'aan waa mid ugu sharaf badan uguna xalaalsan. haddiise waxaaygi iyo waxa kuma siinayo shaqada ay noqoto waxay noqonaysaa marka in qofka uu sharciga hor yimaado maamulka gobolka ama maxkamadaha tago markaasna xoog looga saaro ay imaanaysaa. marka intii meediyaha lala wadaagi lahaa adoo xoog lagaaga qaadayo hanti dad waxa ku sharaf badan inaad si wanaagsan oo dadnimo ah isaga wareejiso mar haddaadan adigu lahayn ama aadan wakiil uga ahayn milkilihii iska lahaa. Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.